markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu waligay muuqaal ma arkin buuri illa waxa ka argagax iyo naxdin badan qabriga muuqaal kasta shay kasto oo fiiriso oo ishaad u qabato wax ka muuqaal xun ma jiro qabriga iyo xaaladda ka jirta iyo muxuu ahay dhibaatada taal sidaas daraadeed xaaladdu qabriga ka bilaabanaysaa markii ruuxa la geeyo oo godka yarkee 2 mitir la geliyo oo dadkiisii iyo qaraabadiisii iyo xoolihiisii iyo kulli meesha la tago waa laga soo dareerayaa markii meesha lagu hubsado sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam saddex baa raacaya ehelkiisii xoolihiisii iyo amalkiisii laba markay godka ku hubsadaan way iska soo noqonayaan xoolihii way soo laabanayaan qaraabadii eheladiina way ka soo noqonayaan waxa meesha ku hadhaya oo qabriga la joogayo kuwa helinaya waa amalkiisii hadduu u xun yahay iyo hadduu u fiican yahay qabrigaasi marka waa meel imtixaan waa ka nabigu tafaasiisha faraha badan ka bixiyay sallallahu alayhi wasallam marka ruuxa la aaso iyadoo wali dadkii ayna ka tagin oo shanqadhoodiiba wali uu maqlayo in nafta lagu soo celinayo la soo fariisiinayo la imtixaanayo su'aalo la weydiinayo sida kolba uu uga jawaabo ilaahay u waafajiyo in qabriga xaalkiisu u noqon doono ama beeraha jannada kamida ama godgodadka naareed kamid uu noqonaya halkaasaaba xaaladu ka bilaabanaysa laakiin inagu ma ogin ruuxi waa aasnay waana ka soo dhaqaaqnay Allahu a'lam inta wixii ka dambeeyay waxba kala ma socono saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam dadka qabriga lagu cadaabayo iyo cuquubada dadka ku haysata iyo dhibka ku haysata iyo qeylada ka baxaysa hadii aad maqli lahaydeen ma baydan is aasteenba waad kala carar mar alla markuu ruux dhinto waad ka carari lahaydeen maydan aasteenba ruuxa laakiin ilaahay baa inaga qariyay tabaaraka wa tacaala oo dhagteena ka qariyay oo inaan maqalaba inoo diiday meeshaasi marka waxa way dhibaa ka jira ama barwaaqo noqon qabrigu ama balaaye iyo dhibaato noqonaya halkaas marka ay ka bilaaban sidaas daraadeed manzilka iyo booskaasi markii laga gudbo ood muddo ku jirto adigu ama ku cadaabnow oo cidhiidhi iyo mugdi iyo garaacis iyo cadaab iyo dhib kala kulan ama barwaaqo iyo janno iyo raaxo iyo nasiino iyo kala kulan ila labada mid weey muddo markaad meesha ku jirto ila gadaal la isu celin maayo noloshii hore waa laga soo tagay geedi socdo weeye laga soo noqon maayo horay baa loo socdaa muddo markii lagu jiro dib hadana la isu soo celinaya waa la soo nooleynaya quraanku aad buu uga hadlay masalada soo nooleynta bacthiga iyo nashriga nushuurka isu soo nooleynta dambe aad buu quraanku xooga u saaray tusaalayaal aad u far badan waa ka bixiyay dhinacyo far badan baa bini aadamka laga tusaaleeyay waxyaalo dhintay oo ilaahay soo nooleeyay baa la tusay waxa lagu miithaaliyay oo tusaale looga dhigay allihii horaanba idinkoon jirin idin abuuray inuu idin soo celiyo waa la isaga qiyaastay ha uu idin soo celin isaxaayay idinkoon jirin buuba idinka bilaa soo celin maxay tahay waxa lagu miithaaliyay roobka da'ay oo dhulkii oo meedo nabaad guuray oo bakhtiyo nooleeyay kaasoo kale lagu miithaaliyay sida dhulka loo nooleeyay boo idinkana dib la idinku soo celinaya يعني waxa tusaalahaasi quraanka isagana aad buu soo celceliyaa ilaahay awood inuu u leeyahay baa layna tusaaleeyaa cilmi iyo inuu aqoon u leeyahay jirkii bini aadamku meeshuu kala aaday oo waxba ka qarsoonayn kaliya inuu dhahayo waqtiga marka la gaaro nafafyaalkii ruux walba meeshuu galay in looga dhawaaqayo soo istaago soo bax amarka ilaahayna wax la diidi kara ma aha waa in meeshiisu ruux walba ka soo kacaya وكان النبي نوشة صلى الله عليه وآله وسلم وقت مركل لجاره روب داعية روب مركود دقه بني آدم كي روح والبماشي لجو عصي بيدبيع داسي جاريسا كدي من الدبيع داسي مركي جارلو دبا شركي سوق صون نقنايا روحينا يسوق سيدي سيابو قبرك كسو كعيا نفتي با كوتشرتا وهبل والله سو كعي meesha la yimid xagee way seesa loo soo kacay
waxa loo soo kacay marka aad iimaanayso meel yaro kooban oo ban ah oo banaan oo calaamad lahayn oo ruuxa dhawaaqay dhawaqiisa laga maqlayo dhinaca kale laga maqlayo oo ishaadu ay dhinaca u sheey qabanayso meel yar baa aadamihii oo dhan la isugu keenayaa xaaladda lagu sugan yahay sayuu taalaa xadiidka cabdullaahi ibn cabbaas fi saxiix al-bukhari wa ghayrihi nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yuhsharu an-naasu xufaatan curatan ghurla ibn aadamkii baa la soo kulminaya bankaas iyo banaankaas la isugu keenaya ayagoo oo kabala ayagoo qaaqaawan ayagoo buuriye qab ah oo rag iyo dumarba wixii laga gooyay ee qashin ahaa uu ku yaalo markaas nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam akhriya bura aayadan akhriyay kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu markii ugu horeysay sidaan u abuurnay si lamidaan ku soo celinaynaa adduunka markaad iimaaneysay waxa timid adoo qaawan adoo buuriye qab ah adigoo oon waxba haysanin adoo waxba ka nixin adigoo xataa calaalkii lagu qaban lahaa iyo maradii lagu qaban lahaa aan wadanin oo sidanin waxaad qabsan kartana ayna jirin sidii aad adduunka ku timid ayaa qabrigana kaga soo baxaysaa waad qaawan tahay buuriye qab baa tahay kaba ma haysatid sidaas lagu iimaanaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam wa awwalu man yuksa ibrahim ruuxa ugu horeeya ee mara loo xidhi doono dadka khalqiga wada qaawan cidda ugu horeysay la asturi doono mara loo xidhi doono waa nabiyullaahi ibraahim buu nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam waxa yeelay nabiyullaahi ibraahim ilaahay dartii baa loo qaawiyay dartii baa cadab loogu tuuray isaga marka ilaahay abaalgud ugu dhigay marka ugu horeysay inuu mara u xidho rabbi tabaaraka wa taala meeshaas marka la iimaanaya meeshu say u taala banaankaas la isugu iimaanaya halka marka la isugu yimaado waa banaan cidhiidhi away banaanka cidhiidhiga la isugu yimidna haddana wuxuu la dheeryahay aadamaha halka isugu yimid waqti dheer bay meesha ku qaadanayaan 50000 sana konton kun oo sano bay taagnaanayaan xaalada kala gedisan iyo maraaxil kala gedisan bay marayaan cuqubaad iyo waxay la kulmayaan ahwaal iyo dhibaatooyin bay meesha la kulmayaan bankaasi la isugu yimid sida nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam tadnu shamsu yawm alqiyama qorraxdii baa la soo dhaweynaya way soo dhawaan madaxooda la keenaya markaasaa waliba nabigu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam kuleylka hadda ay leedahay mid aan ahayn baa lagu siyaadinaya kuleylkeeda iyadoo la soo dhaweeyay intaasoo milyan oo mitir ayadoo hadda inoo jirta intaasoo bilyanis ayay haddana macdaalka yaan kulkeeda la joogi laanahay dhulka korkiisa hadday wax yar soo durki lahaydna kownka dhan waa dhalaali lahaa qorraxdaas la soo dhaweynaya markaas madaxeen la soo saaraya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam yaghli minha alhamu kama yaghli alqudur madax maskaxda bini aadamka ayaa karkaraysa fur way karkaraysa sida dherigu u karkaro oo kale maskaxdu la karkaraysa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam markaas ay dhididayaan dhididkii ka baxay baa dhulka galaya markaasuu haddana dib u soo noqonaya ruux walba dambigiisu intuu dhanaabuu dhididka kululi u qabanaya dadka qaarkood wuxuu u qabanaya aanqowga dhudhunka sinta iyo meesha laga xidho dharka dadka qaarkood dhididkoodaaba liqayaba yaani wuxuu xakameynaya dhididkii baaba liqayaba halkaas ay ku jirayaan maalin dheer oo ilaahay uu ku tilmaamay tabaaraka wa taala konton kun oo sano ba xaaladda lagu jirayaa wala qaqaawan yahay cid maalinkaasi aad ciirsan karto iyo cid wax kula qaban karto iyo cid aad xataa hunguriyeyn karto ma jirto la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi labada isdhalay waxba isuma qaban karaan
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ضدك كوجو حجاد وجودش عليه بعد مالك كربنا يسوي كعرّيسا ويدا أبها ولا لها عرورت هذه حكتدي بل واحد شعلان لهي أنت أديجا أتفكته أنت أدونك أتشعلي دورن إن عاد مدح فرشك لقطه يجعل معنا لوجو فرط أنت أدونك أتشعلي دورن هدي لي هذا إسكفرود هلي كرتوا إسكفر الله يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه حتى قرابة هذه أهل هذه واحد شعلي دورن إن مدحك كفرة شعلان يسار لكن مهلي كرتوا wax alla waxa dhulka korkiisa yaalo oo dhan maalinka hadii lagu siin lahaa waad isku furan lahayd laakiin ma lagu heesinayaa waa ma lagu siinayo jaaniskaasi waa lumay waa la soo dhaafay meel wax laga qabta lama joogo xaaladaas marka banki qiyaamada dadkii ku haysta muddo markay ku jiraan oo la rafaado oo la kadeedmo oo la gubto oo dhibaato fara badan bankaasi lagu maro ay dadku marka dambe waxay dhahayaan war rafaadnaye war ilaahay tabaaraka wa tacaala cid inoogu shafeecda bal aynu raadino yaa ilaahay yaan erga dirsanaa yaa ilaahay inoola hadla bal ilaahay rusushiisii hala raadiyo nabiyullaahi aadam baa loo tagayaa aadamow waad aragtaa silicana haysta bal ilaahay la hadal ilaahay u ergeesh noo shafeec aadam waa ka cudur daaranayaa geed baan cunay ilaahay ma hortegi karo maanta rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadhowsan weligii cadhoonin ma hortegi karo bal nuux u taga rasuulka ilaahay ugu horreeyay ilaahay soo diray weeye nuux bay u tagayaan nuuxna wuxuu leeyahay nafsii nafsii ma hortegi karo ilaahay maanta ma dhiiran karo naftayda haddaan lafahayga la badbaadaba nebi ibraahim bay u tagayaan sidoo kale nebi nuux bay soo marayaan waxaan u jeedaa nebi muuse calayhi salaam sidoo kale nebi ciise la soo maraya mid walba gacmuhu taagaya waa cudur daaranaya maanta waxuma qaban karo ilaahayna ma hortegi karo maanta ilaahay wuxuu cadhaysan yahay cala uusan weligii cadhoonin saas daraaddeed nafsii say u soo socdaan nebi maxamed bay u imaanayaan sal alla alay wasalam maxamedow rasuulkii u dambeeyey ilaahay diray baad ahayd muxuu ahay kanaad ahayd waa imaanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala nooga shafeec bal sidan in la dhoo dhaamo nala kala dareeriyo dadka la kala xukumo nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu istaagayaa waa sujuudayaa ilaahay buu baryayaa waxaa loo furayaa baryooyin iyo tasbiix iyo xamdi iyo wax ilaahay uu ogsoon yahay oo ilaahay uu ku ammaanayo ku baryaa ilaahay u furayaa muddo markuu sujuudsanaado ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay maxamedow madaxa kor u qaado soo toos sal tu'ta ishfac tushaffac weydiiso waa lagu siinay maxaad rabtaa ergadaada waa la aqbalayaaye markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam shafaacayaa waa shafaacada weyn ee khalqiga dhan wada gaaraysa ashafaaca alcudma maqaamka maxmuudka ah ee khalaa'iqdo dhan ay u wada mahad celinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam maqaamkaasuu marka istaagayaa